السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada Baghdad Online Academy iyo koorsada Community Development. Maanta waxaan bilaabaynaa cashirka ugu horeeya oo ah Introduction to Community Development. Cashirka iyaga maanta waxaan ku baran doonaa definitionka Community Development, waa maxay Community Development. Waxaan kaloo baran doonaa sidoo kale Goals of Community Development, waa maxay yoolalka iyo ahdaafta looga gol leeyahay Community Development. Ugu dambeyntiina si brief ah waxaan u eegi doonaa the history of Community Development. Haddaba aynu bilaabano waa maxay community development. The definition of community development. The United Nations Economic and Social Council defines CD, community development, as the process by which the efforts of the people themselves are united with those of the governmental authorities to improve the economic and socio-cultural conditions of communities, to integrate these communities into the life of the nation, and to enable them to contribute fully into national progress. United Nations Economic and Social Council-ka loo yaqaano raacsan United Nation-ka wuxuu define gareynayaa ama ku qeexayaa community development inuu yahay process oo effortiga dadka ishak muxuu ahaa lagu mideynayo oo lala mideynayo dadaalada dowladda iyo authoritiska si loo hormariyo to improve si loo hormariyo ishak muxuu ahaa xaaladaha dhaqaale mid bulsho iyo mid dhaqan communitieska sababta loo sameynaya waxa waaye si these communities loogu sameeyo inay integration la sameeyaan oo ay la midoobaan oo ay la falgalaan these communities into the life of the nation wadanka intiisa kale guud ahaan iyo si loogu awoodsiiyo communitieskaas inay ka qayb qaataan si dhameystiran progresska guud ee wadanka u sameynaya. So marka halkan waxaa laga hadlaya community oo ah bulsho iyo development horumarin ama horumar so marka halkan waxaa laga hadlayaa community development macnaheedu waxa waaye horumarin bulsho. Okay, so marka bulshadaas la horumarinaya tabcan waa bulsho u baahan baahiyo gaar ah qabta waxyaabaha qaar ay ka maqan yihiin some infrastructure oo communityda kale ee maybe ka agdhow ay leeyihiin ay ayaga ka maqan yihiin. Yani مثلا inta badan markii community development laga hadlayo in Africa iyo wadamada third world countries-ka waxaa xooga la saaraa rural community development because miyiga iyo baadiyaha dadka ku nool inta badan way ka dambeeyaan dadka kale ee urban areas waxyaabaa loo yaqaano amaba meelaha magaalooyinka ku nool waxaa ka baqan services aad u badanaa ka maqan haddee tahay education haddee tahay health and other things. So marka community development marka hadafkiisa waxa weeye in dadaalada dadka iyo midka dowladda la mideeyo si bulsho loo hormariyo dhaqaale ahaan bulsho ahaan iyo culturally si loo hormariyo si bulshadaas marka ay ula falgasho bulshada kale. waxaan isleeyahay waa caddahay. Now definitionka hadaa eegna marka waxaan nooga soo baxayo elements oo muhiim ah oo definitionka ku jiro. The participation by the people themselves in effort to improve their level of livelihood. Definitionki waxaan ku soo sheegnay dad aragtaan halkan waxaa la yiri the process by which efforts of the people themselves are united with those of the government. taas marka macnaheedu waxa weeye markii laga hadlayo community development participation oo waxaa looga baahan yahay dadka communityga ka tirsan inay qayb ka noqdaan developmentgaas oo macnaheedu waxa weeye waan arki doonaa approacheska markaynu tagno community development inaysan noqonin marka community development something dadka kor looga keeno oo lagu impose gareeyo ay noqoto something oo process ah oo in addition to authorities and governments waxay noqon karaan local governments waxay noqon karaan state governments waxay noqon karaan federal governments sidoo kale waxaa qayb ka noqon doona NGOs in dadka communityga themselves ay party ay ka noqdaan a participation ay sameeyaan in the effort to improve the livelihoods of those communities. Sidoo kale another very important element oo ka dhahanayno definitionka waxa weeye the provision of technical and others in ways that encourages initiative self and mutual help and make them more effective. It's expressed in programs designed to achieve a wide variety of specific improvements. qaybta kale waxa way definitionka ka eegayno in community development uu involve garanayo provision in la bixiyo technical and others in ways that encourages initiative self and mutual help. Yani in la bixiyo caawamaadyo caawamaadaas oo dhiirigelinaya halabuurka iyo iscaawinta mutual help so program tabcan barnaamijyadaas waxaa
loo sameeyaa qaab programs health programs education programs muxuu ahaa wash programs and many other programs taasoo loogu talagalay marka specific goals and objectives in lagu gaaro haddaba waa maxay ahdaafta looga gon leeyahay community development number 1 to organize the people for sustainable development the main purpose of community development is to organize the people yani to organize the people for what for the main purpose sustainable development yani dadka in la organize gareeyo oo la hago oo la organize gareeyo si ay u gaaraan horumar joogto ah this enables the people to collectively identify prioritize and plan to solve their problems that ultimately leads to sustainable development taas marka waxay awood u siinaysaa dadka si wadar ah inay u ogaadaan marka hore kadibna ay priority ay u sameeyaan kadibna ay u qorsheeyaan problemyada haysto si markaas ay u gaaraan sustainable development ilaa marka hore waa problemki to be identified in la ogaado kadib priority in loo sameeyo macnaheedu waxa weeye awlawiyaad in loo sameeyo oo la kala hormariyo sida ay u kala muhiimsan yihiin sida ay u kala urgent yihiin kadibna qorsho looga gungaarayo problemkaas la sameeyo through successful organization the community members overall develop their community yani haddii organization sax ah oo la sameeyo oo dadkii la hago oo la isku toosiyo waxaa suurtagalaya marka community memberkaas inay gaaraan community goalskii iyo horumarka bulsho ee loo baahnaa so marka hadafka ugu horeeya waxa waaye to organize the people si ay u gaaraan horumar daa'im ah oo joogtaysan hadafka labaad waxa waaye mass awareness oo macnaheedu tahay dadkii in ay xog ogaal ka noqdaan maxaa aware ay ku noqonayaan from the various problems in the community problemada kala duwan ee community ka jira in la ogaado maxaa anagana haysto dhibaato ah maxaa culaysana haysto maxaa ciladana haysto oo hadday tahay educationka hadday tahay healthiga hadday tahay cultural hadday tahay social yani because waxaa la yidhi ishak muxuu ahaa haddii la ogaado what is wrong then waxa suurtogalaysa marka wixii qaldanaa in la xaliyo so marka community development helps them to provide knowledge and know about the main causes that affect their social life community development wuxuu community ka caawinayaa yani inay helaan knowledge ay u baahanayaan si ay u ogaadaan causes and problems and effects si u ogaadaan all that muxuu ahaa waxay ka caawinaysaa in ay xal u helaan problemyadooda sidoo kale ayagoo dabcan caawimaad ka helaya government iyo non governmental organizations ayagoo caawimaad ka helaya so marka mass awareness is really very important sidoo kale waxaa ka mid ah improve the living standards of people community development aims to improve the living standards of the people yani community development waxyaabaha looga gun leeyahay waxaa ka mid ah in heerka noolida communityga kor loo qaado heerka noolida dadka in kor loo qaado hadday tahay dhinaca dhaqaalaha hadday tahay dhinaca justiceka iyo cadaaladda hadday tahay dhinaca capacity buildingka iyo skill developmentka hadday tahay dhinaca caafimaadka hadday tahay dhinaca caruurta iyo dhalaanka hadday tahay dhinaca women empowerment iyo education iyo capacity building waxaasoo dhan runtii wax waaye living standard because the reality is haddii la isbarbardhigo certain communities for example rural communities and urban communities waxaa mar walba xaqiiqadu ay tahay in rural communitieska ay ka dambeeyaan when it comes to living standards oo living standardskoodii inuu yahay mid low compared to urban communities so marka communityga sometimes the community might be even urban community yani community oo urban oo magaalka degan ayaa darajaad soomaha dad waxaa jira high class dad waxaa jira low class so markii laga hadlayo community development is not necessarily rural development yani inkastoo rural developmentiga uu yahay very key and very important lakin anywhere community uu degan yahay u baahan baahiyo less developed ama underdeveloped compared to the rest of the nation waxay u baahan yihiin in loo sameeyo living standardkoodii in la hormariyo sidoo kale waxaa ka mid ah ahdaafta to empower the people community development seeks to empower individuals and groups of people with the skills they need to effect change within their communities dadka in la siiyo awooddaas maxaa lagu awoodsiinayaa
waxaa lagu awoodsiinayaa xirfado in la siiyo hadday yihiin individuals amaba groups of people ay yihiin xirfadaha la barayo maxaa ka mid ah waa xirfado noloshooda wax ka bedelayo yaa maalan beeraleydii in la baro xirfadaha ugu wanaagsan ee cayayaanka loola dagaaltamo xirfadaha beerta lagu horumarin karo xirfadaha sidoo kale xoololeyda la baro sida xoolaha looga ilaaliyo cudurrada sida looga talaalo cudurrada qaar sida loo daaweeyo waxaasoo dhan waa skills haddii dadka la baro noloshooda wax badan ka bedelaya womenka for example haddii la baro skills soft skills oo u noqon kara source of income oo ay qoysaskooda iyo caruurtooda ay ku maareyn karaan waxaasoo dhan actually markii la fiiriyo waa waxyaabo empowerment dadka siinaya marka waxay ka mid tahay ahdaafta waaweyn ee community development ee loogu golnaya sidoo kale waxaa ka mid ah wax laga yaqaano capacity building waa very important the main purpose of the community development is to aware the people and build their capacities for the enhancement and improvement of their communities in capacity building the management and leadership skills are enhanced of the community members moreover the people are trained to manage the community resources by keeping its proper record يعني sidoo kale ahdaafta community development looga golay waxa kamid ah capacity building awoodaha dadka in la dhiso haday tahay leadershipka haday tahay maareynta iyo maamulka waxaasoo dhan iyo sida resourceskooda ay uga faa'iideysan karayaan sida resourceskooda ay u ilaashan karayaan gaar ahaan haday jiraan leaders kana firkood in la siiyo trainings yani rural area leadership community leadershipska in la siiyo trainino awoodahooda hogaamineed iyo maamuleed lagu hormariyo community kana firkiisa la siiyo trainino on how to keep their resources on how to develop themselves waxaas oo dhan waxay ka mid tahay ahdaafta iyo programmada la xiriira community development ay hiigsanayaan sidoo kale waxaa ka mid ah ahdaafta to develop linkages with other communities an organization in xiriiro iyo cilaaqaad iyo relationships lala sameeyo other communities iyo organization kale community development through community organizations enable the people to develop their linkages with other government and non-governmental organizations for the development of their community yani community development ahdaafteed waxaa ka mid ah through organizations in communitygii lagu xiro other communities sidoo kale lagu xiro other organizations ha noqdeen governmental ama non governmental ha noqdeen kuwa dawladda la xiriir ama kuwa aan dawladda la xiriirin oo NGO ah ha noqdeen taasoo ugu dambeyntii yoolku uu yahay to develop the community so marka community wuxuu la sameeyaa xiriir community kale maybe ka horumarsan maybe similar problems ay qabaan exchange of ideas exchange of experiences ay sameyn karaan sidoo kale organizationo bixiyo support iyo caawimaad haday noqdaan government and non governmental inay la sameeyaan linkages and relationships sidoo kale waxaa kamid ah yoolalka to enhance the notion of community ownership. Community development aims to enhance the notion of community ownership among the people. The active involvement of community members in developmental activities ensure the notion of ownership among the people that leads to sustainable development. sidoo kale in la hormariyo waxa loo yaqaano community ownership oo macnaheedu tahay mabda'a the notion mabda'a lahaanshaha community ownership macnaheedu waxa weeye in la hormariyo mabda'a in dadka ay leeyihiin communitygoodii resourceska communitygoodii ayaga ay leeyihiin communitygooda ay yihiin dadka first mas'uul ay ka yihiin ayaga horumarkooda in ay ayaga ay macnaha mas'uul ka yihiin number 1 macnaha inay own gareeyaan problemadooda oo ay isku tashtaan ayaga so when that happens waxa dhacaysa marka actually dadka si active ah inay uga qayb galaan developmental activitieska taasoo marka ugu dambeyntii horseedi doonta sustainable development marka this is really very very important taas marka macnaheedu waxa way dadka inaysan ka sugin mar walba hay'adaha ha noqdeen hay'ada dawladeed ama non governmental inaysan ka sugin inay caawimaad u keenaan inay capacity building u sameeyaan in ayaga nafirkooda ay isxilqaamaan oo isxilqaan iyo iska wax u qabso ay markaas u dhistaan communitygoodii ayna u horumariyaan dabcan wixii support ah technical support and others horaan uga soo hadalnay way helayaan history of community development si kooban marka aan u sheegno ereygan community development goormuu yimid goormee la isticmaalay markii ugu horreysay waxa waa 1948kii ayaa ereygaas uu soo ifa baxay community development actually xilligaas uu soo baxay ayadoo marka loola gol leeyahay horumarka loo baahan yahay in laga sameeyo Africa particularly wadamada aadka u liita dhaqaale ahaan taas wixii ka dambeeyay marka xilliga ereyga aad baa loo isticmaalaa throughout the world hay'adaha UN-ka iyo others iyo governmental and non-governmental organizations ayaa waxay yool ay hadaf ka dhigteen in la kobciyo la horumariyo communitieska gaar ahaan kuwooda vulnerable ka ah
kuwooda liita markii loo barbardhigo the other part of the nation. halkaas waxaa inoogu soo dhammaaday casharkayga maanta. intaan ku kulmayna cashar kale waxaan idinka tagayaa fi amaan illah. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.